waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. xalay abaarasaq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 51 daqiiqo ayaa waxa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qoliyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhawaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo bariyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas kaliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baacsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeellada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas. sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxa lagu weeraray Daarusalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayida oo gaaray ilaa 16 qofood oo dhaawac ah. waxa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee 2 gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo gacanka xaq daran ayaa waxyeelaysay. sidoo kale waxaa ku waxyeeloway ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida booliis, military iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka. waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaqa rasaasta. waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada Muqdisho ay sugan tahay, magaalada Muqdishona ay tahay nabad. kaliya waxa la dhibsanaya waxay tahay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho dhanka ammaanka, dhismaha, horumarka dhaqan dhaqaale. waa intaas waxay kooxaha nabadiidka ka dirirayaan. laakiin waxaan u ballan qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo naftaba loo huro ummadda Soomaaliyeed. ilaa haddana ciidanka booliiska howlgalkii wada labada degmo waa laga howlgalayaa. wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa insha Allah.